Bismillahirrahmanirrahiim. Bal waxa aan ereyyo yaryar ka odhanayaa siyaasadda Faysal Cali Waraabe iyo Somaliland uu ku dhex joogo. Ninka Faysal Cali Waraabe waxa weeyaan waa nin weyn oo injineer ah oo in badan qarankii Soomaaliya ka soo shaqeeyay. Imakana waxa weeyaan waa gudoomiyaha xisbiga UCUD weeyaan ma garat. Ninkaasi 2 jeer oo horena wuu dhacay. Ninkaas anigu haddaan fikirkayga arrin ka yiraahdo, ninka Faysal Cali Waraabe la leeyahay ninkaas vision baanu lahayn, vision hagaagsan ma laha. oo ninkaas waxa weeyaan 2 jeer baan anigu codeeyay, 2dii jeerba wuu dhacay. Ninkaasi vision ma laha. Markaa waxaan soo jeedin lahaa maadaama aanu ninkaasi aragti lahayn, nin aragti leh ayaa wax lagu taageeraa ama cod lagu taageeraa ama cudud lagu taageeraa. Laakiinse nin bilaa vision ah oo bilaa hamiya oo aan meel hiigsanay aanay jirin, waxaan odhan lahaa bulshada iyaan codkeena lagu khasaarinin. Imikana waa la ogyahay oo dadka wax garadka waaweyn ee beesha ciidagale lamaba socdaanba ma garat. Waxay la socdaan isbedel doonka iyo xisbiga wadani. Annagu markasta ninkii wax doonaya ayuunu la doonaynaa. Ninkii hamile hiigsi sareeya oo kursi madaxweyne qabsada oo doonaya inuu caadi u tartamayo, ninkaasaan anagu la doonaynaa. Laakiinse nin xisbiga kulmiye oo waxa weeyaan dhabarka ugu jiro oo uu leeyahay waxaanu ka mideysanahay difaaca qaranka iyo waxaas. Anagu waxa weeyaan waxba la dooni mayno. Bulshadeeda aan ka soo jeeday ciidagale weynina waxaan leeyahay ninkaas Faysal Cali Waraabe wuxuu inaga hortaagan yahay waa booska. Markasta oo nin siyaasi oo ciidagale wanaagsan israahda soo bax madaxa soo qaad. Imika rag badan oo waxa weeyaan mustaqbal siyaasadeed leh ayaa meesha jooga sida Jaamac Shabeel oo kale, waxa weeyaan maayirkii hore ee Xuseen Maxamuud Jiciir oo kale, maayir Cabdikariin Axmed Moogo oo kale. Niman badan oo siyaasadda mustaqbal ku leh ayaa jooga. Laakiinse kuwa maxaa ka hortaagan? Waxaa ka hortaagan gudoomiye Faysal Cali Waraabe oo markasta odhanaya markii loo baahdaba anaa taagan ma garat. Anigu ugu dambeyntii odayga Faysal Cali Waraabe waxaan leeyahay Faysalow ka dhamaatay siyaasaddii waxba way kugu suura geli waayeen. Adeer waxaad u wareegtaa xagga iyo golaha guurtida oo booskii aan ku fadhiisino Xaaji Cabdi Waraabe Ilaahay u naxariistay. Aad halka nabadeyntii odaynimada ka gashay halka iska galbaan ku leenahay. Faysalow siyaasadda waxba kuma yaalaan.